waxaa ka farxadno ah inaad nagala soo qayb noqotaan munaasabada weyn oo aanu doonayno inaanu ku dhagax dhigno dugsigii hoose dhexe iyo sare Sheekh Ibraahim qaybta dugsiga sare oo la rabo in dhismo dabaqa laga kiciyo dhismaha boorka inooga muuqda waxa iskuulka la dhisay oo dhismihiisii koowaad uu dhismay 1967 wuxuu ku bilowday 4 fasal maanta wuxuu marayaa 43 fasal oo subaxii wax lagu dhigto waxaan doonayaa inay iskuulkii Sheekh Ibraahim dhisaba gebigiisa waa loogu iman iskuulkan maanta waxa keenay baa la damba keentay markii dhulkiisii aan iskuulka dayrka ku wareejinay oo wada dhismay ee uu dhinac loo dhaqaaqo la waayay waxa noqotay in kor loo dhaqaaqo intii fikirka boqolkiiba aan taageerno waan soo dhaweynaynaa waanu hirgelayaa insha Allah bari ka maalina waxaanu insha Allah ku dari doonaa elka kale ee halka ka muuqda qof kasta oo reer Sheekh Ibraahim oo madaxa oo meel kasta jooga iyo ganacsatada waxaan ka codsanayaa inay wixii looga baahday dib u dhiska iskuulka ay ku kordhiyaan dhismaha dabaqa ee quruxda badan leh oo dhisan insha Allah inaan maalin dhow aynaanu arki doono anagu deemaan maanta lacag badan oo halkan aanu maxay ka sheegno ma jirto laakiin waxaanu ballan qaadaynaa lodkaygu yaraayo waxaanu nahay maamul qoladii waxa ugu yar isku qortay 2000 baan isku qornay laakiin waxaanu ballan qaadaynaa inay labada ku joogeen ilaa inta ay ka dhamaanayso lacagta waa wadayna waa ballan qaad ma warkay sheegaysay iyo waanada ay bixisay gacmo wada jir bay wax u qabtaan una walwaalaane waxtar la isku biirshaa wax qabad lagu wanaajaye waa dhagax dhigii sheekha iyo wax isu geeygeeyne waxa ka muuqda tafaa'ul ama waxa weeyaan sansaan aad iyo aad u fiican maadaama reer Sheekh Ibraahim ay diyaariyeen gurigii hoose anigu isma lahayn arday baa lacag inta qarash dhaalay ka soo ururaya reer Sheekh Ibraahim oo ay idin hambalyeynayna Allah idin barakeeyo inteena kale waxa leenooga baahan yahay iskarabtaag haddii hanti tahay haddii nin waliba wixii uu qaadan karay ninkii qowl kaga qayb qaadan karaya iyo ninkii hanti kaga qayb qaadan karaya inaan iskarab taagno waa aqbalay weeye waanu aqbalay qof iyo awoodii qof iyo aqoontii qof iyo itaalkii waa aqbalay iskuulkanina wax weyn buu wadanka Soomaaliland ku soo kordhiyay gobolka Togdheerna ku soo kordhiyay way fiicantay fikradda iyada ah ee maanta lagu dhaqaaqay waxaan leeyahay iskuulka kan marka da'deedii iyo kuwii naga horreeyay lagu daro dad aad u badan yaa ka baxay iskuulkan أنا أدبر فرح سنة مركب كوبات مانتا والتاريخ يرنتي إن أنا كسر قيب قرح حفلة لو قلنا حدقيو والله أنت تدوس الشيخ إبراهيم لكن كالقاعدة السكول قوضنا أيضا ما تسوسوا وضبط الله إن الأود السكول كي الدولة هو سحر كذا هينا أنا أدوسي أكينو كل ما تحال كان حدقي بلويبي قارن بلويبي أنا كل كحلبان أنا جو شخصي ودار ديدي حركة بده بالمشاهر كيجا أيوة كويا وهاي أنا أقول آدم حسين هان كل دور ما كويا وهاي هالكم لكن أحسن أما واحد يقول ضيضة أي سكولة الدولة ده أي أوهر سيدي يعني أما أوهر سيدين دوسي الشيخ إبراهيم شنية كنتم سنة فيليا لأنه وين بان هاي لفتيدي إنه شنية كنتم ترسلي ما أنت الشيخ إبراهيم شنية كنتم سنة إنه تشري بان فيليا مركا تاريخ دي لصوب بلاوية أساس كيسي لقى هدلو farxad bay noo tahay inaanu saaka munaasibadan kala soo qayb galno maamulka dugsiga Sheekh Ibraahim iyo ardaydiisa iyo waalidiintaba tugba taagtii uu rugmadaaye kulli the contributionka qof waliba wixii ku aadanaa iyo awoodiisa iyo waxa ka dambeeyay uu eegaya anagu ka degmahaan insha Allah diyaar baanu nahay horteerano si guud iyo si gaar ahaan uga qayb qaadano iskuulka dhismihiisa lagu soo kordhiyay dabaqyada caalamku waxaan fasal ka yar waxaan bari hore laga tagay marka waa bilowgii waxaan u malaynayaa gobolkeena Togdheer dabaqii koowaad ee iskuulada tamaanta halkan aan u joogno dabaqii koowaad Sheekh Ibraahim baa qaatay kii labaadna waxa qaatay ganacsatadii oo la saaray haddii Ilaahay yiraahdo
kaas saddexaad baana la yidhi kaalinta ugu weyn ka wasaarad ahaan annagu inta aanu sanadkan gelinay oo kaliya dabaqo ku dhadhawaanaysa wasaaradayadii iyo maamulkii madaxdii wasaaraddana waa dubba isugu noqonaynaa kaalinta diyaar baanu nahay inanu kaalintayada haddii eeba idhaahdo aanu ka qaadano fikirka iyo talada wanaagsan iyo abaabulka qiimaha badan ay maanta sameeyeen ee maanta sabab u noqday inaan halka soo istaagno saddexda dabaqna maanta in la hirgeliyo runtii sabab u ahaa waxaan leenahay jazaakumullahu khayran dowrkiinni iyo waajibkiinni baa gudateen waana xigmadda rabbaaniga ah ee laynoo keenay koonkan in qofku wax ku soo kordhiyo fakar iyo talo iyo tusaale intaba uu ku soo kordhiyo marka waxaan leenahay dowrkiinni iyo waajibkiinni aad lahaydeen ayaad soo kordhiseen aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada horumarinta waxbarashada runtii iyadoo dowr muhiima kaga jirta qaranka